السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. maanta waxaan ka hadli doonaa mowduuc ku saabsan dhiirigelinta. Toddoba qaab oo aad ku dhiirigelin karto qofka. Dhiirigelintu waa wax aad iyo aad u wanaagsan una wanaagsan qofka la dhiirigelinayo si uu wax ugu hamiyo. Toddobadan qodob waa qaababka aad ku dhiirigelin karto qofka. Kow, marka hore qofka markaad dhiirigelinayso si gooni ah u dhiirigeli. Marka uu dadka dhex joogo waxaa laga yaabaa inuu qofku dareemo waxoogaa xishood ah, dabadeed dhiirigelintaada jawaab ballaaran ka bixin waayo. Laba, ku taageer dareenkooda iyo fikradooda wanaagsan si ay u soo jeediyaan, marna ha daboolin ama ha is ilowsin fikirka ay ku soo jeediyaan. Saddex, ka caawi caqabadaha soo wajaha si ay u dareemin kelinimo. Afar, isticmaal su'aalo. Tusaale ahaan, waxaad ku tiraa ma u malaynaysaa inaad warbixin soo gudbin karto galabta? Su-aashaadu ha ahaato mid aan caqabad ku hayn qofka. Shan, u sharax qiimahooda. Tusaale ahaan, waxaad ku tiraa waxaad tahay qofka ugu wanaagsan. Lix, marka aad wax u sheegayso ha ula hadlin sidii qofkaa sarreeya oo kale. Toddoba, marka uu qofku wax wanaagsan qabto ama shaqadii sidii ay ahayd uga soo baxo, waxaad ku tiraa shaqo wacan ayaad qabatay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. VFX footage.